waxaan ka fikirayay oon ka akhriyay buugaag aad u tiro badan waxaan ka dhageystay podcastyo aad u tiro badan waxaan allahumma sa'aan ka daawaday youtube aad u badan waxay ugu qaadatay toddobadan arrin ee muuqaalkan kula wadaagi doono waqti aad u dheer marka haddii aad inaad hanti yeelatid aad rabtid inaad noqotid anigu I am on the way still waan dhisaya wadadeedii waan ku jiraa waxaan sameynaya haddaan qacmaha ku hayaan sameynayo ayaan insha Allah hadii la xidhay la wadaagaya soo dhawaada saaxiibayaal waxaan hay warsame baday waxaan channelkan iyo facebookan kusoo gudbinaa tabo iyo tusaalooyin aad ku horumarin kartid naftaada noloshaada iyo mustaqbalkaaga haddii aad nagu cusub tahay farxad bay noo tahay inaad nagu soo biirtid muuqaalkana like saar si uu dad badan u gaaro saddex waxyaabood waxaa jirta Allah musta'aan ay dadku raadiyaan inta badan markay hanti ka fikirayaan saddexda arrimood baan kala saaraya arrinka koobaad ee dadku ay raadiyaan waa mansab status waxa la yiraahdo qofku wuxuu raadinayaa status waxaan ahay ka ugu fiican maxayga kale waxaan ahay ka ugu fiican kan kale waxaan ahay ka ugu wanaagsan ka ugu dad badan ka ugu maxaysan status game baa la yiraahdaa game taas la fahanno waa status game dad badan oo waxa jira maanta aan ka fikiray inay hanti samaystaan ama ay hanti yeeshaan laakiin ka fikiray kaliya inay status samaystaan maxay ka kala gaaray ka kala sameeyay status wax ka qaldan ma jirto it's good Allah musta'aan oo bulshada cid ku daawanaysa ma jirto hadii aanad status haysan laakiin ina iyada hadafka kama dambeynta ku noqoto ama ina iyada hadafka kama dambeynta ku noqoto challenge ma noqonayso way statuska dadka ciyaara waa sport ko kale ama ciyaartooyada kale sports ko kale waa status game sidoo kale اللهم استعان بوليتيكسكا سياسة اللهم استعان بوليتيكسكو يدنا waa status game qof baa lose gareynaya qof baa win gareynaya laakiin hanti qofku inuu hanti ama wealth create gareeyo way ka duwan tahay waa ciyaar ka duwan qofku inuu hanti yeesho oo hanti create gareeyo waa ciyaar ka duwan weeyaan hantida qof kasta hanti yeelan karaya dad aad guri yeelatid ana guri aan yeesho waxba Allah musta'aan naga ma xuma hadii aad business dhistid ama software samaysid ama wax kale samaysid waxba naga ma xuma laakiin dadku as long as status guys waa zero sum game bala si aad status ku guuleysatid waa inaad wax haysataa marka waagii hore ahayd oo cid ahayd Allah musta'aan inay wax samayso laakiin maanta way ka duwan tahay adduunku isbedel arinka kale in Allah musta'aan ayidna jiray dadku ciyaaraan waa money lacagta waa maxay lacagtu ayaan isweydiinaynaa lacagtu kaligeed macna ma samaynayso lacag kaligeed meel iska taala macna value ma laha lacagtu waa waxaad ama waqtigaaga aan kaga iibsanayo imika qofka ila shaqeeyo kale waqtigiisa Allah musta'aan ayaan ku kala bedelayna ama service aad qabanaysid oo ii sameynaysid ayaan Allah musta'aan ayaan kugu charge kareynaya waa labada arrimood weyn saas bay Allah musta'aan kugu soo galsaa marka lacagtu waa value creation value wax aniga qiimo ile ayaad iga iibisay ama wax aniga qiimo ile ayaan Allah musta'aan marka value waa ka duwan yahay qof walba value buu leeyahay oo waxyaabo kala duwan bay Allah musta'aan ay dadku value ugu kala duwan taasna waa taas marka statusku waa wuxuu qofku mansab uu raadinayo maxay gaabaan gaaray intaasoo maxayan gaaray intaasoo subscribers aan gaaray intaasoo huuhayan gaaray waa status game baa la yiraahdaa gaarigaas baan haystaa dadka kale ma haystaan saacadan Rolex ka baan haystaa waxa kale aan haystaa waa status game weyn status game kana inta badan sportka haday noqoto maxay gaadhay noqoto marka dad badan oo maanta raba inay hanti sameeyaan ma rabaan Allah musta'aan status ma baahna marka inaad fahamtid ma status game baan ciyaaraya ma hanti baan dhisaya مثل لعق بان الله مستعان أيام سميني حبيت أسينا سلفها نوين حبيت أسدان سلفها نو it's much easier مركا إنا كوضا شيء كيس إنه سدي أيام لعق لو كريت كريه مركا هادوان سلفها نه جيم تيجرتي جيم تأمل أما لعق بترادين نسا واحد كستول قبيت أما لعق بترادين نسا أما مصب بترادين نسا أما هنتي بتسمين نسا مركا وام حي هدي واحد سويدين إنه وام حي wealth وام حي هنتي دو بس سويدين إنه هنتي دو وواح كو أنا كحرني وقت جاga ولا عكو سوقلني hantidaas ama business bay noqon kartaa ama guri aad haysatid buu noqon karaa ama software ku shaqeynayo noqon karaa ama machine aad samaysay buu noqon karaa ama video aad samaysay buu noqon karaa ama hantidu marka wax ku shaqeynaya imika videogan aan hadda sii daynayno kale maybe sanawaad ka bacdi inuu lacag sameeyo maybe sanawaad ka bacdi inuu lacag generate kareeyo taas ayaa la yiraahdaa wealthku waa wax aan adiga waqtigaaga kugu xidhnayn oo lacag ku soo saaraya ama lacag aad invest gareysay buu noqon kartaa oo lacagtaas invest stock market garee Allah musta'aan invest garee real estate invest garee business invest garee taas buu noqon karaya ama business adigu aad dhistay oo systems iyo processes aad u sameysay oo keligii lacag sameynaya ayuu noqon karaya inaad wealth leedahay marka adiguna wealth waad sameyn kartaa aniguna waan sameyn karaya maaha wax status iyo ku xiran maaha qof walba bulshada u adeegaya ama qof walba bulshada wax ka iibinaya ayaa Allah musta'aan wealth create gareyn karaya marka wealth waxa la yiraahdaa ama guri aad dhistay oo kiradiisa aad qaadatay ha noqoto ama business aad maal gelisay oo wixii ku socday ha noqoto wax kasta oo adiga aan waqtigaaga ku xidhnayn ayaa la yiraahdaa hanti oo wealth la yiraahdaa
intaanad hanti samayn allah mustacaan maxaan hanti ku samaynayn hanti waxaan ku samaynayn inaad waqtigaaga iibisid allah mustacaan oo tiraahdo waqtigayga waan shaqo tagayaa deeta lacag baan helayaa waqtigaaga iyo lacag inay isku xidhnaadaan oo connect isku noqdaan hanti kuma yeelanaysid waa habeenkii xalaytay maybe allah mustacaan arrinkaas dad badan baa ayana mafhuumkooda maalinkan fahmay arrinkaas wax badan baa isbedelay hadda saacadayda waxaan ku qiimeeyaa $200 per hour ayaan ku qiimeeyaa because nobody can value my time allah mustacaan qof san anigu waqtigayga u value gareynayo cidna adiguna ima value gareyn kartid qof kalena ima value gareyn karay marka hanti si aad u create gareysid waa inaad allah mustacaan waqtigaaga aad kala saartaa maybe sanadka bacdina inaad hayr gareyn karin oo $1,000 saacadeed ay noqon karayso ayaa macquula maybe haddana shaqayn waa macquul it's okay that's okay allah mustacaan haddana shaqayn wax baan ka fikirayaa businesskaygaan dhisayaa laakiin haddii aad rabtid inaad allah mustacaan hayr garisid $200 per hour ayaad ugu hayr garaysaa that because that's amount of value aan siinay marka waqtigaaga haddii aad tiraadid marka saacado yar baan shaqaynayaa saacadaha shaqaynaysuun baad shaqaynaysaa haddii businesskaagu marka arrinkan baatan dadka ugu badan ay haysanaysa waxa weeyaan waa dadka small business ka haysta waa dadka allah mustacaan 9 to 5 ka shaqeeya haddii aad arrinka haysid maybe wax fiican aad ku noolaatid waad heli kartaa laakiin waxaan xaggan kaga hadlaynaa waa wealth creation inaan hanti dhisno weeyaan wealth creation weeyaan waxaan ka hadlaynaa allah mustacaan inaan wealth create gareyn kama hadlayno allah mustacaan bani bilisan manina oo shilinka yar allah mustacaan shilinka uge koofiga ha u doonin allah mustacaan lacagtaada ilaasho soo qulqul ku noolow waxaas waxba kama jiraan allah mustacaan si aad hanti u create gareysid ida allah mustacaan waa inaad aniga aan isla fahnaa waqtigaaga hanti kuma samayn karaysid there is no way ama there is nowhere aad waqtigaaga intaad iibisid aad allah mustacaan hanti ku yeelanaysid ama dadka lacagta badan sameeyo noqo ama dhaktar noqo ama hay'ad u shaqee ama wax kale u shaqee inaad hantiila noqotid way adag tahay that's why adoo halkaas qof baadiyaha ka yimiday oo multimillionaire noqday business sameeyay waa business wuxuu ku siinayaa 100x inaad Fortune 500 ku allah mustacaan imse koraan Fortune 400 allah mustacaan kompaniyada la yiraahdo in intellect bay koraan waxay koraan 1750 baa qaarkood ay koraan a year 100 times ay korayaan businesska lacag inta lagu jirnay gareynaya marka businessku taas buu ku siinaya allah mustacaan especially waliba online businessyada iyo allah mustacaan waxyaabaha teknolojiyada la xiriira taas bay ku siinayaan businessyada kale physicalka way adagtahay allah mustacaan inay waqti bay ku qaadanayso arrinka haddaba in isla fahnay baan u malaynayaa kow waxaan isla fahnay waqtigaaga allah mustacaan rich kuma noqon karaysid waayo haddii aad maanta fasax ku jirtid lacag kuma soo galayso haddii aad allah mustacaan meel kale tagtid lacag kuma soo galayso laakiinse waxay lacag kugu soo galaysaa waxa weeyaan inaad business samaysid oo businesskaas wax sameeyo inaad software samaysid oo softwarekaas wax sameeyo inaad video samaysid oo videogaas lacag sameeyo taas weeyaan allah mustacaan taad lacag aad hanti ku samayn karaysid laakiinse haddii aad allah mustacaan aanad allah mustacaan aanad joojisitaas waqtigaaga iyo taas hadday isku xidhan yihiin ma samayn karaysid haddaba sideeba ayaad hanti ku samayn karaysaa arrinka koowaad ee hanti ku yeelato waxa weeyaan waa inaad positionka isla xisaabtanka tagtaa accountability waa inay jirtaa isla xisaabtanka haddii ana cid kula xisaabtamaysa ayna jirin ama accountability aanad lahayn way kugu adkaanaysaa isla xisaabtan sabab baan u leeyahay allah mustacaan accountability waayo accountability la-aanteed way adkaanaysaa allah mustacaan inaad meel fog gaadhid way adkaanaysaa waayo hadda sheekan iga sheekeynaya gurigan hadda baan ku dhex jirnaa officeka iyo studiohaygi baan ku dhex jirnaa we are in our office faac cusub muuqaal hore kasoo sameeyey inaad daawateen baan u malaynayaa nin baa jiray allah mustacaan nagala shaqaynayay wuxuu ahaa contractor buu ahaa nin contractor ahaa allah mustacaan ninka contractorka waan u yeernay waan la fadhiisanay waxaan ku nidhi waxaan meeshan baan kiraysanay meeshan waa meel cidla ahayd allah mustacaan markaan dhex nimidnay nothing wax yaalay ma jirin dita waan weydiinay waxaan ku nidhi waxaan rabnaa meeshan inaan ka dhigno studio waxaan rabnaa inaan ka dhigano office waxaan rabnaa inaan board u samayno waxaan rabnaa space faalala oona ciriiri aanan dareemin baan rabnaa inaan samayno waxaan u baahannahay allah mustacaan boardroom waxaan u baahannahay working space waxaan u baahannahay studio waxaan u baahannahay executive office ayaan u baahannahay marka sidee baan ku samayn karaynaa ninkii u baxay wuxuu u yeedhay interior designer buu u yeedhay wuxuu u yeedhay allah mustacaan laborkii dadkii dhisi lahay allah mustacaan shaqadan qaban lahaa wuxuu u yeedhay electricitykii kuwii xidhi lahaa electriga kuwii xidhi lahaa buu u yeedhay wuxuu u yeedhay kuwii ranjiga marin lahaa paintingka samaynayay painting
wuxuu u yeedhay allah mustacaan wuxuu nageeyey dukaanadii alaabta iibinayay intaasoo dhan buu qabtay ninkaasi lacag badan buu naga qaatay allah mustacaan lacag aad u badan buu naga qaatay accountability-ga saarneed waxay ahayd inuu intaasoo dhan isku keeno nin labaad baa jiray oo isla meeshan laftigiisa ka shaqaynayay oo xirfad lahaa ama wax kala sameynayay ama dadkii caadiga ee meesha ka dhex shaqaynaya ahaa ninkan wuxuu qaatay aduu lacag $2,000 ku dhow $2,000 meelaha in ku dhow buu ayuu naga qaatay ninkan kale muxuu siinayey wuxuu siiyey maalinkii 1,500 oo Kenya shilina 1,500 oo Kenya shilina ayuu siinayay allah mustacaan ayuu siiyey ayuu ninka kale siinayay ninkan iyo ninkaas maxaa u dhaxeeya waxa u dhaxeeya waa accountability kan wuxuu mas'uul ka yahay haddii meesha wax qaldamaan wuxuu mas'uul ka yahay cidii designerkii buu garanayaa wuxuu mas'uul ka yahay dukaanadii alaabta iibinayay wuxuu mas'uul ka yahay electricity-gii intaasoo dhan buu ayuu allah mustacaan accountability-ga haya waayo kan iyo kan waxa kala saaraya kan labelka ee caadiga allah mustacaan isaga shaqaynaya waxa kala saaraya 1,500 Kenya shilling waa $12 mise $10 qaadanaya yoomkii ee maalinka dhan shaqaynayay kan saacadu meeshu intuu noo yimid waa waqti yar bay ahayd maalinkii malaha mise labadii maalmoodba hal mar buu soo booqanay meesha iminay kana wuxuu joogay 12 saacadood 12 hours in ka badan ayuu joogay maxaa kala duway waxa weeye waa accountability-ga qaadeen kan lacagta $2,000 laga qaatay iyo kan allah mustacaan $12 daily-ga qaadanaya waxa kala duway waa intaas so you cannot become a rich allah mustacaan haddana accountability lahayn iminka anigoo kale ka soo qaad businesskaygan I have a lot of accountability wax badan oo allah mustacaan accountability-gu waa fragile waa wax jabi karaya waa wax allah mustacaan si fudud ku jabi karaya accountability inaad qaadid kuma xidhna allah mustacaan kaagama xidhna wax kale kaagama xidhna kumbanigaad ka shaqayso waxaa odhan kartaa shaqada ma qaban karaa kan kalaan samaynaya antan waxaas accountability-gaas qaadaysid waxay ku geynaysaa inaad leverage heshid inaad dad maamuli kartid inaad wax heli kartid inaad allah mustacaan taas heli kartid haddaanad accountability jirin dadku intooda badan way ka rooraan accountability-ga iyo mas-uuliyadda maxay uga roorayaan waayo bulshadeena umay train gareyn qofka looma train gareyn inuu mas-uuliyad qaado haddii aanad mas-uuliyad ku saarnayn haddii aanad accountability haysan challenge bay kugu noqonaysaa arrinka kale isna allah mustacaan rich ku noqon kartid waxa weeyaan waa inaad leverage haysataa arrinkan waa aad buu muhiim yahay arrinkaas la faano haddaad xabad ka qaadanaysid cashirkan dhan ama muuqaalkan dhan xabadda ugu muhiimsan waa xabaddan nin Greek ka mid ahaa baa la yidhi ayaa wuxuu yidhi give me a lever and I will move the wall haddaan helo meel aan istaago iyo leverage haddii aan helo adduunka dhan baan dhaqaajin karayaa buu yidhi ninbaa wuxuu joogaa allah mustacaan xaggan ninbaa wuxuu joogaa xaggan buurta hoosteed xaggan buu joogaa allah mustacaan buur buu korayaa buur buu rabaa inuu dhagax saaro kan waa dhagax uu rabaa inuu saaro buurtaas adeeg bay ku tahay inuu xagga kala baxo waa challenge marka leverage-kuna waa kaasoo kale ninna buurta xagga sare ka joogaa waa kan ninna buurta xagga sare ka joogaa buurta xaggan sare ka joogaa ninkan ninna dhagaxa xaggan buu ka soo tuurayaa dhagax buu xaggan ka soo tuuraya midkee baa degdeg allah mustacaan midkee degdeg usoo gaarsiinaya ka dhagaxa soo tuuraya iyo ka dhagaxa gaarsiinaya marka leverage haddii aanad haysan oo no leverage una jirin imika kan leverage ku haysta maxay waa inuu xaggii sare joogo uu si fudud usoo tuuri karayo kan an advantage-kiisu waa baxay inuu buurtii korayo marka haddaad buurta xoog ku kor istiraadid no matter how hard you work that the reason why hard working ku noo shaqeynayn waa taas adiga ninkan sababta isku mid u noqonaysaa way adag tahay that is why allah mustacaan leverage-ka waxa la yidhahdaa aad u fahamtid marka 4 leverage baa jira leverage waa wax aad kor isid weeyaan 4 leverage baa jira in leverage-ka isla fahanaa macquul leverage-ku waa qof fursad haysta oo fursadda isticmaalaya wax buu haysta allah mustacaan uu raacayo ayuu haystaa waagii hore leverage-ku labun buu ahaan jiray allah mustacaan wuxuu ahaan jiray label inaad ciidan badan haysatid label iyo allah mustacaan inaad capital haysatid capital labadaas ubad allah mustacaan umbad ku heli karisay leverage
labadaas baad leverage ku heli kartaa iyada waxaad haysatay ciidan badan oo kala shaqeynaya sidaas ba dawladuhu ay u kala xoog weynaayeen sidaas ba dawladii faraaciyiintu sababtay pyramidka la dhiseen because rag badan bay haysteen oo kala shaqeynaya Allah musta'an capitalkuna aduu intii agriculture aidka ka dambeysay ayuu Allah musta'an soo baxay oo cashka ama dahabka wax lagu kala wareejisanaya ha noqoto ama silverka ha noqoto ama lacagtan kale hadda haysan noqoto lacag baa lacag soo saarta tay Soomaalidu yiraahdaan waa taas weeyaan in lacag badan haysatid waa leverage oo waxaad dad badan baad hayr gareyn kartaa lacagtii baad investment ku sameyn kartaa waa run weeyaan hadda laakiin se dhalinyaradeenan millennium-ka iyo Gen-Z-gii iyo kuwan Allah musta'an naga horeeyba laba fursadood oo kale oo laba leverage oo kale helnay labada leverage kale waxa weeyaan leverage kan mid wuxuu ka imanaya Allah musta'an waa code software waa code Allah musta'an ina software haysid waa code inaad Allah musta'an wax kala samaysid waa leverage oo maanta qofka software sameeyay billion iyo malaayiin qof hada u fiirsatay dhamaan imika wixii ka dambeeyay Bill Gates hada u fiirsatay handiisa xaga ka timid waxa kaas Mark Zuckerberg hada u fiirsatay Facebook iska hada Google hada u fiirsatay dhamaan shirkadka waaweyn hada jira cid hogaaminaysa waa code hantideedu waxa ka timid technology-da ee hantidoodu kama iman gawaari hantidoodu kama iman shidaal hantidoodu kama iman wax kale waxa ka timid Allah musta'an waa code leverage-ka afraadeed haysatay waxa weeyaan waa media imika anigoo kale hadda soo bilaabaysid waan ka leverage badana because it take me years of my life oo fariisiya oo wax baarisa oo wax duubisa hal video iyo sara kacay ma jirin 2 sanadood oo noloshayda kamida aniguna dareemina soo kacayo Allah musta'an wax duubay wax sameynay leverage-kaas dadka qaar media inaad haysatid Allah musta'an 100,000 oo qof inay kugu xiran tahay waxay ka dhigan tahay 100,000 oo qof inaad wax ka iibin kartid 100,000 oo qof inaad waxaaga tusi kartid 100,000 oo qof inaad leverage haysatid marka media itself is a great leverage so that's why adu arkaysa maanta Allah musta'an dad badan master base billionaire buu noqday youtuber badan oo millionaire noqday adu arkaysa marka dhalinyarada intiina yar ee maanta wax fahansan hadda labadan qodob fahantaan you can become rich one of these soo xasuusan doontaa intaad nooshahay and this is where is the money is kuwan waagii hore dad bay kaaga xidhnayeen inuu qofku raaco oo qofku la shaqeeyo waa inuu maslaxad jirtaa maslaxadda haysa maxay tahay way adagtahay Allah musta'an leadership bay u baahan tahay hogaamin bay u baahan tahay wax kale u baahan tahay wax badan bay kaaga baahan tahay capital ina haysatidna Allah musta'an waxay kaaga baahan tahay inuu cid ku siiyo waa permission oo wax cid kaaga xiran laakiin code inaad maanta software samaysid xirfad baa kaaga xiran iyo aqoontaada iyo maskaxdaada imika software-da fiirso qaar baa Allah musta'an sameynaya software multi-billion dollars tagay midna waxa sameynaya software aanan dhaqaaqin mid baa jira Allah musta'an YouTube sameynaya laba qof baa YouTube wada sameynaya YouTube waa meel wax gelinaysa midna wuxuu u kacaya malaayiin qof baa daawanaya midna Allah musta'an ma kacayo marka waa permissionless xagan Allah musta'an kuwan waa manipulation baa lagu sameeyaa inta badan manipulation baa lagu sameyn karaa laakiin kuwan waa permissionless weyn cid kaaga ma xidhna baro sida code-ka loo sameeyo oo application ama software samee ama media good communication ka baro sida Allah musta'an shaashada horteeda looga hadlo baro sida shaashada horteeda looga hadlo baro labadaas weeyaan Allah musta'an ina isla faanay ba macquula aan kanna labadeena way naga dhaxaya adna waad haysataa anna waan haystaa YouTube adna code waad haystaa anna code waan haystaa cid Allah musta'an ku xidhay ma jirto qof walba qofkii isticmaalo bay u dhaxaysaa kuwan kale waa la oran karaya haddii aabahay uu dawladda ku jiro lacag badan haysto inaan business ay furo fudud tahay in cashuuraha laga dhaafay fudud tahay in manipulation lagu sameeyo fudud tahay laakiin dhalinyaro yaan lagaaga badin labadan media iyo code labada fursadood ay haysatay qof kan haddaad ku fiican tahay aad hadli karaysid media kaale haddaad xagan ku fiican tahay xagan kaale that's all kan waa back end-gii Allah musta'an internetka code waa back end-ga internetka media-huna waa front waa wajigii iyo wixii communicate garanayay marka haddaad labada heshid waxa bay raatay ku istaajin karaya ma jirto arinka kale ee isna Allah musta'an hanti ku dhisi karaysid waxa weeyaan waa in dadka weeyaan kaliga waxba ma sameyn karaysid way kugu adag tahay kaliga you need a people dad baad u baahan tahay dad aad la shaqaysid dad aad business partner baad u baahan tahay people you need a people business partner baad u baahan tahay asxaab baad u baahan tahay team baad u baahan tahay marka dad baad inaad dad la shaqaysid dadka qaar waa short term weeyaan waa takers baa la yiraahdaa iyagu soo wax loo qaato bay yaqaanaan soo wax loo sameeyo bay yaqaanaan short term people iyagu waxay ka fikiraan Allah musta'an maxaa anigu helaya what is in me maxaa aniga igu jira maxaan bixinaya kama fikiraan mustaqbalka qofkan sidoo wada shaqeyn karaysan war qofkan muxuu tari karaya qofkan muxuu afkaar kugu kordhin karaya kama fikiraan ikliyat waxay ka fikiraan maslaxadooda iyo dantooda marka dadka uma baahni dadka noloshaada waxaad u baahan tahay inaad qalin cas ka saartid inaad noloshaada ka saartid waayo
way adagtahay allah mustacaan maanta dad badan waxaa jirta wingareynaya waxa u baahantay dadka long termka ka fikiraya dadka 10 sano ka bacdi ka fikiraya muuqaal yar baa jira iska duubay waxaan lahaa 5 sano ka bacdi waxaan lahaa 10 sano ka bacdi because I am looking at long term hadda information kan iyo xogtan aan bixinayno this is a storage it take me years of my life inaan soo helo on podcast dhageysto on book akhriyo on isku dayo on trial and error sameey laakiin se maxaan bixinaa waa value weyn qof kastoo maanta inagu soo biira waa long term marka dadka long termka ka fikiray inaad allah mustacaan aad la shaqaysid weeyaan way kaliya meeshaad gaari karayso yarta dad baa jira wax walba dad bay kaaga xidhayin wax walba dad bay kaaga waxaysan yihiin marka waxaad baantay inaad dad la shaqaysid weeyaan arrinka kale isna aad reach ku noqon karayso waxa weeyaan inaad specific knowledge leedahay inaad aqoon gaara aad leedahay arrinkan allah mustacaan faham gaar u baahan yahay dad badan baa specific knowledge baan leeyahay dhakhtar baan ahay coder baan ahay web designer baan ahay video editor baan ahay hadduu qof kala barto allah mustacaan isku mid umayna specific knowledge-ku waa wax kaliya adiga kugu saabsan iminka hadoo kale anu office ka nimaada shaqooyin badan baa qabta allah mustacaan hadday noqoto wax duubis hadday noqoto client la deal gareen hadday noqoto wax iibin hadday noqoto creativity hadday noqoto offerskii hadday noqoto and waxaasoo dhan allah mustacaan shaqo ayar ma it is a lot of things marka specific knowledge wuxuun baad odhan karaysaa waxaad u baahantay allah mustacaan inaad specific knowledge aad samaysatay specific knowledge-ka dee maanta Shopify baan aqaanaa ama web designer baan ahay wax kala garanaya qof kasta ayaa baran karaya haddii waxaas qof kala bartana specific knowledge ma kama dhigna ka dhigantay labadeenu waan garanayna wixii marka waxaad u baahantay specific inaad aduu unique noqotid uniquenimadaada qof walba ilaahay jaangooni buu ka dhigay qof walba ilaahay dadka kale waa ka duway qof walba ilaahay dadka kale wuxuu siiyey wax awood qof walba waxa jirta wax uu ku fiican yahay qof walba waxa jirta wax allah mustacaan awoodiisu ay taalo inaad allah mustacaan adeegtid waxyaabaha awoodaadu ay taalo inaad ka fikirtid maxay awoodaydu taala xageen wax ka qaban karaya xageen wax ka samayn karaya maxaa sare kacaya maxaan waxayn karaya taas weeyaan tan natiijada ku siinaysa taas weeyaan tan dadka kale ka duwaysa taas weeyaan maanta haddaad u fiirsatid dad badan oo iyagu wax jirta qofka yihiin iyagu lacag ku sameeya haddaad maanta u fiirsatid dhammaan celebrity waaweyn allah mustacaan aad u fiirsatid waa uniquenimo inaad authenticity-gaaga inaad authentic noqotid oo authenticity-gaaga aad focus ka saartid wax weyn bay ku siinaysaa marka specific knowledge eeg adigu curiosity-gaaga eeg waxaad ku fiican tahay eeg waxaad ku wanaagsan tahay eeg waxaad leedahay allah mustacaan mustaqbalka waxaas baad wax ka samayn karaysaa arrinka kalena waa arrinkaas arrinka kale isna aad rich ku noqon karaysa waxa weeyaan inaad baratid how to sell and learn how to build arrinkan waa arrin aad iyo aad u muhiima haddii aad suuqa timaadid hadda youtube oo kale haddaad timaadid there is a lot of people who is hustling oo allah mustacaan hustling samaynaya and there is a lot of people allah mustacaan wax samaynaya marka keliyaad waxay garanayaan si wax loo iibiyo waxaan baan iibinaya kan kalena iibinaya kan kalena samaynaya they don't know how to build so wax loo dhiso waayo buildingku way adag tahay waa shaqo aad u adag weeyaan hadda waxaan soo xasuustaa intaan meeshan dhisaynay from scratch baan ka bilownay it was oh my god waa iska ciyaaraysaa wallahi waxaan ogahay hadduu qof dhis isdhaado it will take waqti badan bay ka qaadanaysaa sanadaad ma qaadanayso laakiin the amount of headache waxa ku jira including design logistic baa ku jira waxa ku jira wax aad u badan baa ku jira marka inaad wax dhistid waxaan baan sameeyay this is your resume this is your portfolio signature-kaagii baa ku yaala allah mustacaan markaad wax dhistid marka there is a lot of hustlers baa jirta wax iibinaya laakiin nothing behind ka jira ayna waxba ka dambeeya baa jira marka dhalinyaro haddii aad maanta yar tahay oo early career-kaaga ku jirtid sax allah mustacaan barose wax loo dhiso tan way fududahay qof kasta u wareegi kara tan arrinka kale isna u baahanta waxa weeyaan inaad baratid sida wax loo iibiyo wax iibku waa wax aad iyo aad u muhiima muuqaal baa jiraan kaga soo hadlay sellingku aad waa broad category weyn wax iibku marka businesska laga hadlayo wuxuu noqon karaa inaad productkaaga iibsid wuxuu noqon karaa inaad teamkaaga a players aad hire garaysid wuxuu noqon karayaa inaad fundraising samaysid oo lam sacaan fundraising garaysid wuxuu noqon karayaa inaad scale garaysid wuxuu noqon karayaa inaad communicate there is a lot selling waa broad waa weyn yahay lam sacaan dadku intooda badan product leebinayn ba soo qaataan markaas inaad haddaad baratid sida wax loo iibiyana waad ka sare kici doontaa suuqa arrinka ugu dambeeya waxa weeyaan inaad business wax ku yeelatid shaqadaada allah mustacaan shaqaalanimo taaj qof wax meel fog kaga gaadhi waa yarta allah mustacaan maybe shaqadaas business ka laftigiisa aad ka shaqaynaysid equity baad ku yeelan karaysaa maybe company baad hadda la bilaabanaysaa companygaas $1 company inuu tagaa macquula waqtiga soo socda oo leader fiican uu leeyahay hogaamiye fiican leeyahay qof visionary fiican uu leeyahay and then allah mustacaan businesskaas inuu meel fog gaadhiya macquula marka yeelo founder mentality imika markaan arko dhalinyarada waa bileesh xaytayaal qofkii naftiisii uma shaqaynayo marka waxaad u baahan tahay waxa weeyaan inaad founder mentality yeelatid haddii aad founder mentality yeelatid
founder mentality waa inaad businesska aad u leedahay shaqo kastood qabanaysid sidii aad u leedahay rasuulku waa kii calayhi salaatu wasalaam dadka u sameey adigu waxa jeclaan lahayd lagu sameeyo laa yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi midkii naga mid iimaan lagama helin ilaa wuxuu naftiisa la jeceliyo walaakiin loo jeclaado marka hadda meel ka shaqaynaysid iyo hadda dad la shaqaynaysid iyo hadda business dhisidba waa inaad mentality-ga ku fakirtaa sidee baan founder mentality u yeeshaa mustaqbalka adaa naftaada u shaqayn doona sidaad adigu u shaqaysid ayaa dadkana kugu shaqayn doonaa marka waxaad u baahan tahay inaad founder mentality yeelatid marka dhalinyaroy weliba chansiga dadka dhalinyaradii 2000 wixii ka dambeeyey that is the only way that you can get rich muuqaalka waxaan rajeynaya inaad wuxuun ka baxdeen haddaad doonaysid inaad wax badan kasii baratid xirfadahan iyo waxaan kusoo biirfaaca cusub university linka hoosta ini dhigaya xirfado kala duwan iyo allah mustacaan waxyaabo kala duwan haddaad doonaysid in aniga ila soo xidhiidid xaggaas baad igala soo xidhiidhi kartaa dhammaanteen waxaan u baahannahay qof ina dhiirigeliya dhammaanteen waxaan u baahannahay qof ina challenge gareeya dhammaanteen waxaan u baahannahay qof inagu taageera waxyaabaha aynu rabno haddii aanad adigu qof ka helin adigu qof u noqo haddii aanad adigu qof ka helin adigu gaar ahaan naftaada u noqo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu